badqabka shacabkeenna iyo caafimaadka ummaddeenna dhammaanteen isku naf keliya baynu nahay nolosheennu way isku xidhan tahay waxaa loo baahan yahay inaynu u fikirro si lexe jecela ku jirto oo dadweynaha iyo dhammaan gaadiidlaydu ay ka qayb qaataan in la yareeyo isu socodka ciidanka booliisku isagoo sidiisaba u taagan amniga waddanka gaar ahaan ka gudaha waxaan amar ku siinayaa oon ku farayaa inay u diyaargaroobaan si adag shaqo adag u diyaargaroobaan nabadgelyada inay maaragtay albaab kasta istaagaan u diyaargaroobaan shaqooyinkooda way yaqaaniin ayaamahan oo kale ay wajahaan ay qabtaane inay seexanin soo jeedaan dhaqdhaqaaqa gudaha oo dhan la socdaan iyadoo heegan aynu gallay oo amarkaa heeganku horu baxay waxaan mar labaad idin farayaa inaynu diyaargarowno goobaha muhiimka ah oo dhan aynu isla ogayna aynu il gaara ku hayno meelaha aynu dhaqdhaqaaqa u filaynana waxay doonaan ha ahaadaan dhinaca cadowga gudahana aynu isha ku hayno iyadoo iidaha la iskaga tala galo cadow kale aanu ognay ma jireen iidaha lagu tala galo inuu maaragtay sideedaba ciidanku inuu dhaqdhaqaaq iyo maaragtay waxa la maaragtay nabad shar u tookay nabad waxba kuma yeesheen taa waynu diyaargaroobi waxa kale oo ciidanka booliska faraya maadaama ciidan cudurkan dunida khalkhaliye awgeed go'aamo laga soo saaray oo madaxda sare go'aamo ka soo saartay oo maaragtay aan ciidii la isugu imanayno goobi ciidda aan lagu tukanayn oo masaajidadii aynu hore ogeyn oo maaragtay isu socodkii iyo maaragtay wixii oo dhan la joojiyey waxaan ciidanka booliska farayaa inay horta goobihii lagu ciidi jiray oo dhan isagoo dadkeennu taa og oo qof waliba inuu gurigiisa ku tukada loo sheegay oo qof waliba xanuunkaa xubin inuu jiro uu og yahay oo la doonaya dhammaanteen inaynu u fikirro inaynu maaragtay caafimaad qabka shakhsigeenna iyo qoyskeenna iyo waddankeennaba aynu ka fikirro ayaa haddana waxaa maaragtay aynu u diyaargaroobaynaa ciidan baynu dhigi doonnaa dadweynaha waxaanu u sheegaynaa goobihii lagu ciidi jiro dhan in ciidan la dhigi doono oo maaragtay ciidan joogo oo cid isu timaadana aan la oggolayn cidina aan isugu iman karin taas waa qodobka labaad gobollada laysuma socon karo nin waliba ha maqlo laysuma socon karo hargeysa berbera uma bixi karto boorama uma bixi karto boorame hargeysa uma soo bixi karto berbere hargeysa uma soo bixi karto burco uma bixi karto burca berbere uma bixi karto laascaano uma bixi karto ceerigaabana sidaasi leeg gobol walba gobolka kale uma bixi karo labada cishee ciidda waa la joojiyey isu socodka iyadoo muhiimadda weynna ay tahay lana doonaya inaynu isku sii u fahamno caafimaadka maaragtay iyo xanuunkan ka hortaggiisa sababtoo ah cilladdii xanuunkan waxay noqotay ama siduu u fidaya waxay noqotay isdhexgalka bini'aadmiga ciidanka booliska waxaan farayaa meelihii aynu isla ogeyn ee aynu isu cayinnay inay si adag u ilaaliyaan dadweynahana waxaan u sheegayaa ninka isku daya inuu ama berbera tago intuu hargeysa ka tago ama uu gobol kale tago inaanu socon karayn lana qabanayo tallaabo sharcigana laga qaadi doono waayo qofka waxaanu u fahmaynaa inuu qofkaasu dheg jalaq u siin waayey amaamiirtii dawladda garanna kari waayey inuu xakameeyo naftiisa iyo nafta ehelkiisa iyo nafta waddankiisa xanuunka inuu ku xakameeyo inuu fahmi kari waayey baanu u dareemaynaa gudaha magaalooyinka lama oggola basasku lama oggola labada cisho ee ciidda lama oggola shirkadaha waxaa lagu adkaynayaa loo sheegayaa basaska yay soconin dhib ma laha baabuurta yaryar hadday socoto oo maaragtay ay magaalooyinka dhexdooda socoto oo maaragtay magaalooyinka dusheeda ay gaadhgaadho oo ciyaalkaaga haddaad iminka geynayso balligubadda sukadeeda geedahaad soo daawadsiinayso cid kugu qabsanaysaa ma jirto dadweynuhu inuu taa aad u fahmaa sidaa madaxdii ga horsoo sheegtay guddida heer qaran waxaa soo saartay amaamiir ka koobnaa ilaa 9 qodob oo ku wajahnaa xaaladdan xanuunka iyo sida maxay salaada ciidul fitriga iyo sidii qaabkaynu iidi jirnay qaab ka duwan loo iidiyo sanadkan
saa taliyaha ciidankuba hore u sheegay iyo barasaabkuba way xayran tahay gobol kastaba halkiisuu ku xayran yahay barasaabada gobollada iyo maayirada gobollada waxaan farayaa sidaa shalayba taararka aanu idinku soo dirnay in amaamiirtaa sideeda loo fuliyo oo barasaab kastaaba gobolkiisa uu xayirto gobol u gudbayaa ma jirto gobol u soo baxayaa ma jirto barasaab walba waxaa laga rabaa iyo meeyar walba gobolka uu mas-uul ka yahay iyo tuulaha uu mas-uulka ka yahay labadaa maalmood iidda wax soo geli karaan ma jiraan wax ka bixi karaan ma jiraan xaaladaha jira awgood inagoo maxay ahayday dadka u kala joojinayna taana taasaan odhanayaa in goobaha ciyaaraha uu sheegay taliyo waa kuwa hargeysa iyo kuwa gobolladoo dhan hargeysa qura ma amaamirta la bixinaya waa gobollada dalkao dhan ay say qoreen guddidu marka waxaan leeyahay labadaa maalmood dadku ha iska adkaystaan nin waliba isagu boolis ha noqdo baslahu boolis ha noqdo shacabku boolis ha noqdo nimanka gaadiidka wada baska waa ogtiinoo awal horeba waxaynu nidhi 15 qof ha fuulaan maalintii markii hore oo loo xadiday oo guddidu xadiday markii laakiin berri iid noqoto 15 qof iyo 70 qof baynu fuuleen waynu ognahay markaasaa maadaama noqotay waxay guddidu soo saartay in basku labada maalmood iska joogo oo uu iska nasto maxay ahayday gudda baskana saasaan ku wargelinaynaa inay saa yeeshay amarkaas ayana u qaato guddidaas heer qaran soo saartay ciidii fidriga oo runtii ah ciidaha waaweyn ee islaamka waxaynu ognahay dunidii inay haleeshay masiibo weyn oo dhammaan dunida oo dhan caam yeeshay sidaa aawadeed waxaa la joojiyey isu socodkii dadweynaha maadaama oo xanuunno aafahay ay dunida ka jiraan dadweynaha reer somalilan gaar ahaan gobolkan maroodi jeex waxaan ku gelinaynaa inay guryahooda ku ciidaan munaasabadda ciidal fidriga isu socodkana la yareeyo dhalinyarada ciidaha u bixi jirtay gobollada iyagana waa la joojiyey waxaa loo baahan yahay inaynu ka qayb qaadano dhammaanteen badqabka shacabkeenna iyo caafimaadka ummaddeenna dhammaanteen isku naf keliya baynu nahay nolosheennu way isku xidhan tahay waxaa loo baahan yahay inaynu u fikirro si lexe jecela ku jirto oo dadweynaha iyo dhammaan gaadiidlaydu ay ka qayb qaataan in la yareeyo isu socodka ciidanka booliisku isagoo sidiisaba u taagan amniga waddanka gaar ahaan ka gudaha waxaan amar ku siinayaa oon ku farayaa inay u diyaargaroobaan si adag shaqo adag u diyaargaroobaan nabadgelyada inay maaragtay albaab kasta istaagaan u diyaargaroobaan shaqooyinkooda way yaqaaniin ayaamahan oo kale ay wajahaan ay qabtaane inay seexanin soo jeedaan dhaqdhaqaaqa gudaha oo dhan la socdaan iyadoo heegan aynu gallay oo amarkaa heeganku horu baxay waxaan mar labaad idin farayaa inaynu diyaargarowno goobaha muhiimka ah oo dhan aynu isla ogayna aynu il gaara ku hayno meelaha aynu dhaqdhaqaaqa u filaynana waxay doonaan ha ahaadaan dhinaca cadowga gudahana aynu isha ku hayno iyadoo iidaha la iskaga tala galo cadow kale aanu ognay ma jiree iidaha lagu tala galo inuu maaragtay sideedaba ciidanku inuu dhaqdhaqaaq iyo maaragtay waxaa la maaragtay nabad shar u toogay nabad waxba kuma yeesheen taa weynuu diyaargaroobi waxaa kaloon ciidanka booliska farayaa maadaama ciidan cudurkan dunida khalkhaliye awgeed go'aamo laga soo saaray oo madaxda sare go'aamo ka soo saartay oo maaragtay aan ciiddii la isugu imanayno goobi ciidda aan lagu tukanayn oo masaajidadii aynu hore ogeyn oo maaragtay isu socodkii iyo maaragtay wixii oo dhan la joojiyey waxaan ciidanka booliska farayaa inay horta goobihii lagu ciidi jiray oo dhan isagoo dadkeennu taa og oo qof waliba inuu gurigiisa ku tukada loo sheegay oo qof waliba xanuunkaa xubi inuu jiro uu og yahay oo la doonaya dhammaanteen inuu fikirro inaynu maaragtay caafimaad qabka shakhsigeenna iyo qoyskeenna iyo waddankeennaba aynu ka fikirro ayaa haddana waxaa maaragtay aynu u diyaargaroobaynaa
ciidan baynu dhigi doonaa dadweynaha waxaanu u sheegaynaa goobihii lagu ciidi jiro dhan in ciidan la dhigi doono oo maaragtay ciidan joogo oo cid isu timaadana aan la ogolayn cidina aan isugu iman karin taas waa qodobka labaad gobollada laysuma socon karo nin waliba ha maqlo laysuma socon karo hargeysa berbera uma bixi karto boorama uma bixi karto boorama hargeysa uma soo bixi karto berbere hargeysa uma soo bixi karto burco uma bixi karto burca berbere uma bixi karto laascaano uma bixi karto ceerigaabana sidaas si leeg gobol walba gobolka kale uma bixi karo labada cishee ciidda waa la joojiyey socodka iyadoo muhiimadda weynna ay tahay lana doonayo inaynu isku sii u fahamno caafimaadka maaragtay iyo xanuunkan ka hortaggiisa sababtoo ah ciladii xanuunkan waxay noqotay ama siduu u fidayay waxay noqotay isdhexgalka bini'aadmiga ciidanka booliska waxaan farayaa meelihii aynu isla ogeyn ee aynu isu cayinnay inay si adag u ilaaliyaan dadweynahana waxaan u sheegayaa ninka isku daya inuu ama berbera tago intuu hargeysa ka tago ama uu gobol kale tago inaanu socon karayn lana qabanayo tallaabo sharcigana laga qaadi doono waayo qofka waxaanu u fahmaynaa inuu qofkaasu dheg jalaq u siin waayey amaamiirtii dawladda garanna kari waayey inuu xakameeyo naftiisa iyo nafta ehelkiisa iyo nafta waddankiisa xanuunka inuu ka xakameeyo inuu fahmi kari waayey baanu u dareemaynaa gudaha magaalooyinka lama ogola basasku lama ogola labada cisho ee ciidda lama ogola shirkadaha waxaa lagu adkaynayaa loo sheegayaa basaska yay soconin dhib ma laha baabuurta yaryar hadday socoto oo maaragtay ay magaalooyinka dhexdeeda socoto oo maaragtay magaalooyinka dusheeda ay gaadhgaadho oo ciyaalkaaga haddaad iminka geynayso balligubadda sokadeeda geedahaad soo daawadsiinayso cid kugu qabsanaysaa ma jirto dadweynuhu inuu taa aad u fahmaa sidaa madaxdii iga horreysaba sheegtay guddida heer qaran waxaa soo saartay amaamiir ka koobnaa ilaa 9 qodob oo ku wajahnaa xaaladdan xanuunka iyo sida maxay salaada ciidul fitriga iyo sidii qaabkaynu iidi jirnay qaab ka duwan loo iidiyo sanadkan saa taliyaha ciidanku hore sheegay iyo barasaabkuba way xayran tahay gobol kasta halkiisu ku xayran yahay barasaabada gobolada iyo maayrada gobolada waxaan farayaa sida shalayba taararka aanu idinku soo dirnay in amaamiirta sida loo fuliyo oo baraka saab kastaaba gobolkiisa uu xayirto gobol u gudbaya ma jirto gobol u soo baxaya ma jirto barasaab walba waxa laga rabaa iyo meeyar walba gobolka uu mas'uul ka yahay iyo tuulaha uu mas'uul ka yahay labada maalmood iyo wax soo gali karaan ma jiraan wax ka bixi karaan ma jiraan xaaladaha jira awgood inagoo maxay ahayd dadka u kala joojinayna taasaan odhanayaa in goobaha ciyaaraha uu sheegay